بسم الله الرحمن الرحيم كل وناكسنا قيارتا نلا سعوتا إذ الكيمبا ميل كستوات جوكتان كسو دوادا مركلي تبين كسابسان وراركا وقوا وين دونيدا إيا باريغر دحوان إذ لسعود سين دونا أنيقو عبدالعزيز برو واحد كدا ونايسان يوتيوب channel كا عبدالعزيز برو برامج كلوا برو شو قضبادا ندين هيا وحا كاميدا دولة مصر أيا كبت بادي دابين سامين كويالا لها مدح بناني ديدا iyadoo tallaabooyinkaasi uu si cad uga hor yimid madaxweynaha wadankaasi General Abdi Fattah al-Sisi haddaba maxay tahay dabinka loo dhigayo dawladda Masar ee Israel iyo waliba qaar kamid ah wadamada reer galbeedku ay qorsheynayeen hasaatee sirdoonka wadankaasi ay fahmeen loona gudbiyay madaxweyne Sisi barnaamijka ayaan ku faaqidayaa khiyaarta in la socotay dowladda Saudi Arabia waxay dambaal adag u gudbisay dowladda Mareykanka gaar ahaan madaxweyne Donald Trump arrimo si gaar ah u taabanaya is-afgarad labada dhinac ay dhaxmari karaan iyo cilaaqaad suuragal ah in Israel iyo dowladda Sacuudiga ay sameystaan haddaba Mohammed bin Salman waxyaabaha uu sida gaarka u raadinaya khiyaaray maxaa kamid ah wad ogaan doontaan taliyaha sirdoonka wadanka Masar General Hassan Rashad madaxweyne Abdi Fattah al-Sisi xogayaha guud ee golaha amniga qaranka wadanka Ruushka ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Qaahira waxay si gaar ah iskula eegeen isbedelada waaweyn ee ka dhacaya adduunka iyo cilaaqaadka la xoogeynaya ee u dhaxeeya Moscow iyo Qaahira dowladda Masar markaan ma waxay doonaysaa inay u jihaysato dhinaca iyo Ruushka xilli isbedelo waaweyn oo adduunka ah ay dhacayaan iyo qaab dhismeedkii ama qalfooftii dowladnimada iyo awoodaha baratamaya ee caalamka ka jira warbaan arintaana idinka siin doonaa xogayaha guud ama iraada agaasimaha guud ee amniga qaranka wadanka Ruushka ninka wadanka la yiraahdo Iran ninka la yiraahdo Ali Larijani ayaa goor dhaweyd soo saaray qoraal uu ku leeyahay reer galbeedku inaga nama sasabi doonaan mana jiraan wax gorgortana oo laga galayo gantaalaheena iyadoo haatan laga soo gudbay arintii u dhaxaysay ka hadalka arrimaha nuclear-ka dowladda Iran laakiin loo soo jeestay gantaalahooda iyo waliba hubka ay sida gaarka u sameysay dowladda Dahran wixii ka dambeeyay dagaalkii June dhacay 12 maalin ka soconayay wadankaasi oo Israel ay soo qaadeen haddaba Iran dalabka reer galbeedku haday diideen maxay damacsan yihiin waan kula wadaagi doonaa baaday dabin la doonayo wadankaasi in lagu galiyo dagaal suuragal ah waqti dheer inay qaadan lahaayeen hadii ay dhacaan Israel ayaa sidoo kale maleegtay qorshe ku saabsan in dagaalka ka soconaya magaalada Gaza loo raro Sinaa halkaasi oo ay suuragal tahay in la geeyo inkastoo Masar ay diiday dagaalyahanada kooxaha Falastiiniyiinta madaxweyne Abdi Fattah Sisi ayaa go'aankaasi si cad u diiday iyadoo dowladaha Qatar iyo Masar ay bilaabeen tallaabooyin istiraatiijiyadeed oo ay iska kaashanayaan oo amniga gobolkaasi la xiriira ila diblomaasiyadeed oo sare oo Masar ayaa sheegay in Qaahira ay wada hadallo xoogan kula jirta dhammaan dhinacyada ku lugta leh xaaladda dagaalka Gaza iyadoo diiradda lagu saarayo baaliyay in la guda galo wajiga labaad ee heshiiska xabad joojinta Masar ayaa ku adkaysanaysa in aysan marnaba aqbalayn xalal wax u dhimaya madax banaanida ama amniga qaranka guud ee wadankaasi Masar si cad ayay u diiday fikirka sheegaya in dagaalyahanada ururka Falastiiniyiinta loo wareejiyo dhulkeeda si ku meel gaar ah ama si joogto ah labadaba iyadoo arintaasi ku sheegtay mid qatar ku ah amniga Sinaa iyo xasiloonida xuduudda Masar ayaa sidoo kale ku celisay in aysan noqon doonin marna ama meel lagu qariyo koox ciidan ah oo iyadoo cadeysay in xal kasta uu ku dhax dhismi kara gudaha magaaladaasi oo ay kormeerayaan dhinacyada Falastiiniyiinta dalabka Masar ay diiday waa mid ka yimid Israel iyo qayb kamid ah garabyada kala shaqeynaya xal u helidda dagaalka ka soconaya magaalada Gaza warbixintan uu si gaar ah u qoray wargeyska la yiraahdo Ra'yul Yawm ayaa ku waramaysa sida uu sheegay mas'uul sare oo Misri ah Qaahira buu yiri waxa ay rajaynaysaa in ergada gaarka ah ee Mareykanka Steve Witkoff iyo Jared Kushner ay cadaadis saaraan Israel si ay u ogolaato baxsi ammaan ah oo ay sameynayaan dagaalyahanada Falastiiniyiinta ee ku go'doonsan Rafah
taas oo ka mid ah baa layidhi qaybta amniga ee wejiga labaad ee heshiiska. Masar waxay u aragtaa joogitaanka labada ergey ee Tel Aviv fursad muhiim ah oo lagu jabin karo caqabadaha ay Israa'iil hor dhigtay heshiiska, iyadoo waafaqsanayn baa layidhi si joogto ah kee Mareykanka, Qatar iyo Masar ay garwadeenka ka ahaayeen. dhinaca kale ila wareedyo ayaa sheegaya in wada shaqaynta Masar iyo Qatar ay iminka noqotay mid sii xoogaysanaysa, isla markaana dhinacyada ku lugta leh xal u helidda dagaalkaasi ay haatan aad uga shaqaynayaan sidii kor loogu qaadi lahaa in wadamada lagu qanciyo in wejiga labaad ee wada hadalka iyo xabad joojinta la guda galo. dhinaca kale madaxweynaha wadanka Masar General Abdi Fattah al-Sisi ayaa qaabilay wafuud heer sare oo ka soconaya laamaha amniga qaranka dowladda federaalka ah ee Ruushka. arrintan ayaa waxa ay ka dhacday qasriga Al-Ittihadiya oo ka yaala magaalada Qaahira, waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka mid ah dalka Masar, gaar ahaan taliyaha sare ee hay'adda muqaabaraadka ee wadankaasi General Xasan Rashaad. ujeedadu waxay tahay in la iska wareystay baa layidhi calaaqaadka labada dal ee dhinaca ammaanka, iskaashiga loo baahan yahay iyo gabagabaynta colaadaha ka taagan magaalada Gaza. marka la fiiriyo dowladda Masar, tallaabooyinka ay qaadayso waxa ay ka dhignaan karaysaa in dowladda Ruushka markan ay ku sii dhawaanayso si la mid ah gacansaarka ay la leedahay dowladaha reer galbeedka. sida warbaahinta carabta qaarkood ay qorayaan, madaxweynaha dalka Masar Abdi Fattah al-Sisi ayaa maanta magaalada Qaahira ku qaabilay Sergey Shinoy oo ah xogayaha golaha ammaanka ee Ruushka, iyadoo kulanka uu goobjoog ka ahaayeen baa layidhi mas'uuliyiin ka soconaya labada dal. kulanka waxaa ka qayb galay taliyaha muqaabaraadka dalka Masar General Xasan Rashaad, la taliyaha madaxweynaha ee amniga qaranka Faisa Abunaga iyo wasiirka amuraha dibadda Dr. Batri Abdelcaadi, halka Ruushka ay ka socdeen madax ka tirsan golaha amniga iyo muqaabaraadka dibadda ee wadankaasi. afhayeenka madaxtooyada ee dalkaasi Masar Ambassador Mohammed Al-Shanawi ayaa sheegay in kulanka lagu falanqeynayo arrimaha laba geesoodka ee iskaashiga Masar iyo Ruushka iyo sidoo kale xaaladda gobolka iyo caalamka ee labada dhinac sida gaar ah u wada saameynaya. madaxweyne Sisi ayaa ku adkaysay muhiimadda ay leedahay in la sii wado dadaalada lagu ilaalinayo xasiloonida bariga dhexe iyo waliba Ruushka in arrintan uu soo farageliyo, iyadoo la ilaalinayo buu yidhi midnimada iyo xuquuqda Falastiiniyiintu ay leeyihiin. waxa uu ammaanay dowladdiisa Sharm el-Sheikh kaalinta ay ku lahayd xal u helidda dagaalada muddada dheer ka soconayay. Sisi waxa uu ku celiyay xalka kaliya ee nabadda waarta lagu gaari kara inuu yahay buu yidhi dowlad Falastiin ah oo madax bannaan, taasi oo ku salaysan go'aanada sharciyada caalamiga ah. si markaana Ruushka uu qayb ka noqdo dagaaladaasi, waxaa miiska la soo saaray arrimo ay ka mid yihiin wadanka Ukraine. dalka Masar oo ku yaala mandiqad istiraatiiji ah, gacansaar uu la samaysanayo Ruushku waa mid saameyn ku yeelanaysa amniga dowladaha reer galbeedka oo ay hadda si weyn isku hayaan dowladdaasi Moscow. dowladda Sacuudi Arabiya ayaa dalab hor dhigtay wadanka Mareykanka, kaasi oo ku saabsan is-afgarad labada dhinac ay galaan. madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa dadaalo badan ku bixinayay sidii dalka Sacuudiga loogu qasbi lahaa ama cadaadis loogu saari lahaa in cilaaqaad diblomaasiyadeed uu la yeesho nidaamka Israa'iil, sida ay ku waramayaanba xubnaha arrimaha diblomaasiyadda ka shaqeeya ee warbaahinta xogtan u soo dusiyay. ila diblomaasiyadeed oo qaliija ayaa xaqiijinaya in boqortooyada Sacuudigu ay u gudbisay Mareykanka mowqifkeeda rasmiga ah ee ku saabsan suurtagalnimada in la gaaro heshiis caadiyeynta xiriirka ah ee kala dhaxeeya Israa'iil ka hor kulanka la qorsheeyay toddobaadka soo socda ee u dhaxeeya madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo dhaxal sugaha wadankaasi Amiir Mohammed bin Salman. sida ay sheegtay warbixin ay goor dhaweyd daabacday wakaaladda wararka Reuters, Sacuudiga ayaa si cad u sheegay in maamulka Mareykanka mowqifkiisa aanu isbedelin, isla markaana uu ku salaysan yahay baa layidhi mabda'a ah in la helo marka ugu horeysa dhismaha dowlad Falastiini ah oo 67 loo celinayo xuduudaheeda, caasimadeeduna ay noqonayso Qudusta Bari sida dowladda Sacuudigaba ay ku dooday.
sacuudiga ayaa u gudbaya Washington fariin diblomaasiyadeed oo qaaxaysa siyaasadda ku wajahan arrimaha Israa'iil iyo Falastiin taas oo ka muujinaysa baa la yidhi xal siyaasadeed oo cadaalad ah oo lagu dhisayo dowladda Falastiin in ay yahay shuruucda kaliya ee ku salaysan tahay wadahadallada mustaqbalka ee la xiriira caadiyeynta xiriirka mowqifkan ayaa imaanaya iyadoo la filayo in kulanka uu Trump iyo bin Salman uu noqon doono mid labada dhinac ay si weyn uga wada hadlaan arrintaasi hase haatee Sacuudiga goor hore ay muujinaysaa in ay xaqiijiyeen go'aankooda kama dambaysta ugu dambeyntiina dowladda Iran ayaa mowqif adag la soo baxday oo ku saabsan arrimaha gantaalaheeda xilli wadamada reer galbeedku ay si weyn u dhaliilayaan gantaalaha dowladdaasi gacanta ugu jira oo warshadeeda militarigu ay farsameeyeen xogayaha golaha sare ee amniga qaranka ee Jamhuuriyadda Islaamiga Iran Ali Larijani ayaa sheegay in awoodda gantaalada difaaca ee Iran ay tahay arrin gudaha ah oo aan cidna xaq aysan u lahayn inay ka faa'iideysato ama ay soo faragelisatoona isagoo carabka ku adkeeya in Iran aysan marnaba ka tanaasuli doonin in la cabsi geliyo oo lagu qasbo in ay ka tanaasusho arrintaasi Larijani oo ka hadlay gunaanudka shir ka dhacay magaalada Tehran oo ciwaankiisu ahaa innaga iyo reer galbeedka aragtida Imam Khamenei ayaa lagu sheegay in reer galbeedku ay doonayaan in ay ku soo rogaan baa la yidhi xukun iyo heeryo siyaasadeed shacabka Iran taas oo ay adag tahay inay ka badbaadaan isla markaana ay u adeegsadaan wada xaajoodka sidii hubka ay isku difaacayaan ee gacantooda ku jira meesha looga saari lahaa waxa uu tilmaamay gelitaanka faylka nuclearka uu ahaa kaliya marmarsiyo reer galbeedku ay u adeegsanayeen inay dagaal ugu furaan shacabka Iran balse ay adkaysiga shacabka iyo awoodda ciidamada qalabka sida ee Iran ay ku qasbeen dhinacyada ka soo horjeeda inay dib ugu guuraan in mar kale ay la soo baxaan aqliyo iyo farsamo aan la aqbali karin Larijani waxa uu cadeeyay in Tehran aysan weligeed qaadin siyaasad colaad ah oo reer galbeedka kala dhaxaysa balse ay tahay dabeecadda siyaasadeed ee amni ee reer galbeedka midda ay had iyo jeer kula xiriiraan dowladda Iran sida Larijani uu hadalkiisa u tilmaamay isagoo ka hadlaya xaaladda siyaasadda caalamka waxa uu tilmaamay in madaxbannaanida qaranku ay noqotay arrin adag dunida oo dhan maanta isagoo tusaale u soo qaatay madaxweyne Trump waxa uu yiri isagoo ku faanaya nabad isagoo dal kale ugu hanjabaya awood ciidan sidaa darteed sidee u noqon kartaa buu yiri cadowga koowaad ee madaxbannaanida ummadda in laga ilaaliyo dhinacyada haatan doonaya wadankeena inay si u hajuumaan laakiin Larijani waxa uu sidoo kale ku eedeeyay Mareykanku inay isku dayayo inuu bedelo shuruucda caalamka uu ku bedelo xoog iyo cadaadis taas oo sababtay buu yiri fowda iyo waliba qatar weyn oo amni hase haatee dowladdiisu aysan aqbali doonin guud ahaanba go'aankaasi marka la fiiriyo gudoomiyaha golaha sare ee amniga qaranka dowladda Iran Larijani warkan ka soo baxaya waxa uu muujinayaa mowqifka